بسم الله الرحمن الرحيم ولكن سلطان عبد الله محمود معهد كمدنمي انستيتيوت فور بوليتيكال ساينس اند نوليدج sida aanu shacabka Soomaaliyeed uga ballan qaadnay inaan u soo galin doono runtii casharo buugaag insha Allah maanta waxaan rabnaa insha Allah intaanan buug review-ga aan soo gudbin insha Allah waxaan jecelnahay habeen dambe inaan soo galino buug review-giisa aan asbuuc la akhrinay laakiin inta ka horeysa waxaan rabnaa inaynu qodobo yar yar oo runtii aan u aragno faa'iido inaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo muslimiinta inaan la wadaagno waxaanu jeclaysanay intaanan buuga aynu galin oo aynu review-giisa buuga aynu soo bandhigin waxaanu jeclaysanay 6 qodob aynu rabno inaan runtii bulshada Soomaaliyeed la wadaagno sidee wax loo akhriyaa iyo sidee wax loo fahmaa qofku markuu wax akhriyo sidee wax fahmi karaa barna insha Allah macadka Midnimada Institute for Political Science and Knowledge waxa uu soo gudbiyo macadka Midnimada Institute for Political Science and Knowledge waxa ka go'an in uu diyaar leeyahay aqoon qualified wax badan laga faa'iidayo bulshada Soomaaliyeedna waxaan ugu ballan qaadnay in si degdeg ah iyo si qualified macallimiin iyo professional ay wax ku sharaxi doonaan hadii Allah idmo insha Allah macadku wuxuu furmayaa bisha koowaad sanadka 2019 marka inta aanan gelin waxaan rabnaa mowduucayna maanta inaan ku salayno sidee wax u akhrin karnaa kadibna aad wax fahmi karnaa marka hore fiiri inta aadan wax akhrin waxa ka horeysa inaad fahanto waxaad akhrinayso inaad wax fahanto waxa ka horeysa inaad diiradda saadho waxaad akhrinayso waa muhiim qofku inuu fahmo waxa uu akhrinayo qofku inuu fahmo waxa uu akhrinayo waxa uu akhrinayo inuu akhriyana waxa ka horeysa inuu fahmo wuxuu akhrinayo inuu fahmo waxa ka horeysa inuu diiradda saaro waxa uu akhrinayo baan rabnaa inaan maanta runtii bulshada Soomaaliyeed aynu la wadaagno marka sidee wax loo akhriyaa qaab noocee wax loo akhriyaa marka aad rabto inaad wax akhrido challenge caqabada intee la eg baa ku qabsan kara insha Allah waxaan rabnaa waanu soo koobno waxaanu ka dhignay 6 qodob qofku markuu rabo inuu wax akhriyo wax akhrisku uu soo diyaar garoobo caqabado badan baa qof kala kulmay hadduu imtixaan diyaarsan lahaa hadduu si kale wax baran lahaa hadduu wax akhrisan lahaa oo noloshiisa wuxuu ka fil lahaa qofkii caqabadaha jira challenge waxbuusan meesha ku akhrin karin caqabadahaasaan rabnaa marka inaanu dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed la wadaagno insha Allah haduu Allah number 1 ka fogow wax kasta oo ku dhibaya ka fogow wax kasta oo ku mashquulinaya number 1 waa inaad ka fogaataa wax kasta oo ku mashquulinaya for example telefonka kale TV-ga hortiisa kale inaad wax ku akhriso lambarka ama telefonka laftigiisa inaad wax ku akhriso agtiisa telefonka waa inaad silent iska gelisaa waa inaad waxa way ama damisaa sidoo kale telefishinka markaad wax akhrinayso waa inaad iska damisaa qolka waa inaad hoosta ka soo xirataa waa inaad asxaabtaada walaalahaaga family-gaaga aad u sheegtaa inaad caawa akhris leedahay marka Janice halaysiyo yaan layla hadlin si aan u guulgaaro wax akhriskayga ka fogow wax kasta oo ku mashquulinayo waa very important inaad wax kasta ka fogaato si aad noloshaada horumar ugu samayso si aad nolol cusub aad u yeelato number 1 diyaarso wax kasta aad u baahan tahay waa inaad diyaarsataa wax kasta aad u baahan tahay qalabka waxaad ku akhrin lahayd buugaagtii qalimaantii wax kasta aad u baahan tahay waa inaad ku soo diyaar garowdo waayo maskaxdu waxa weeye wax badan bay ku mashquulinaysaa waxay leedahay buugaas u baahanahay waxay leedahay qalinkaas u baahanahay waxay leedahay halkaas u baahanahay waxay leedahay buug hebel baan u baahanahay waxaan u baahanahay buuga gadaashiisa inaan wax ka akhriyo marka si aad kacaaga u bato oo aad u noqoto qof very talented oo wax badan akhriyay waa in aad agtaada soo dhigataa wax kasto aad u baahan tahay number 3 agtaada dhigo warqad iyo qalin agtaada dhigo warqad iyo qalin waa very important maxay ka caawinaysaa warqad iyo qalin warqada iyo qalinka waxay ka caawinaysaa wax kasta oo niyadaada ku soo dhacay inaad qoranayso hadii aad waxa way waalidkaad rabto inaad wacato hadii aad rabto family-gaaga inaad wacato hadii aad rabto saaxiibta inaad wacato hadii aad rabto asxaabtaada inaad wacato wax kasta challenge baa kugu hor imaanay marka isku day adoo wax akhriskaaga ku jira inaadan mashquulin number 1 qoro hebel inaan waco number 2 hebel inaan waco number 3 gabadha inaan waco waa inay ku heegan yihiin waxa ay ku diyaarsan yihiin danna aad gashaa waxa way casharkaaga oo diyaar garowgiisa aad hore u sii gashaa waxay ka caawinaysaa wax kasto niyadaada ku soo dhaca inaadan ficilkeedii aadan sameyn laakiin aad waraaqada ku qorto number 4 xadid waqtigaaga
waqtiga inaad xadido waa very important waqtiga aad wax ku akhrinayso qofku haduusan lahayn time uu wax ku akhriyo qofka waxa dhici kara noloshiisa inuu la isgaro soul of liswayno ku dhaco waxa la rabaa in time-ka aad wax akhrinayso uusan jadwal aad leedahay waxaad wax ku akhrisata aad leedahay 45 daqiiqan caaw akhrinaya oo aan jadwalku ugu qoran yahay waa inaad time leedahay time-kaas wuxuu ka caawinayaa noloshaada inay noqoto nolol qualified nolol horumar leh nolol wax qabad leh nolol fiican bayna noloshaada kugu waaninaysaa waa inaad time leedahay number 5 qaado nasniino breakfast qaado 45 daqiiqo taa wax akhrisay tan 10 daqiiqo oo waxa qaadata breakfast oo nasniina qaado meelaha tag waayo waxaan ogsoonahay hadii aad fariisato 45 daqiiqo wax akhriso oo aad fariisato waxa dhici kara jirkii dhiigii waa macaanaanay marka waxa la rabaa si socod hadii aad almita yar gali kardo inaad xoogaa socoto activity badan aad sameyn kardo waa very important waayo 10 daqiiqo waxaad u qaadanaysaa warqadii haday aad ku qorotay dadkii inaad dib u wici kardo 10 daqiiqo hadii aad wax ku xallin kardo inaad dib u yagleesho oo aad akhriso oo la hadasho hadii aad xallin kardo arimaha inaysan 10 daqiiqo ka badan waa sida time blindka loo akhriyo number 6 abaalmari naftaada waa inaad abaalmarisaa waa inaad tiraahdaa shirkadaha caalamka jooga organizationada kambaniyada shaqaalahooda iyo staffkooda waa la guddoonsiyaa jaayizooyin baa la guddoonsiyaa waa la abaalmariyaa way aad naftaada u abaalmarin laada naftaadu waxay ka mudan tahay inaad abaalmariso si xaq ay naftaada kugu leedahay naftaada markasta u sheeg inaad tahay qofka kugu wanaagsan inaad tahay qofka kugu macquulsan inaad tahay qofku markasta wax akhrisan kara inaad tahay guush ugu fiican inaad u soo hooyi karto abaalmari naftaada hadaan aad u abaalmarin hadaan aadan ugu sheekayn inaad professor tahay hadaan aad ugu sheekayn inaad aqoon-yahan tahay ya aqoon-yahan ka dhigay 6 qodob baanu jecel lahay inaynu maanta asxaabteena iyo walaalaheen iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed aynu la wadaagno insha Allah sidoo kale habeen dambe waxaanu soo bandhigi doonaa buugaagta review aan ugu talagalnay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka inay ka faa'iido doonaan insha Allah 6 qodob waxay ka caawinaysaa inaad waxna akhriso waxna aad fahanto haddii alla idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi